الله عليكم ورحمة الله تعالى منه وبركاته كلنتي وعن أو وناكسان ميل كستو جوجتان داوديا كسو دوادا ورئيسي قارو عن ليراني عبد النور عيرمي قاجو مدحوينها أمام القبلات كالصومالية خاتمة يستيد ومانتا لكعا سوني استوديوها سمسادة مقرد عن مقدشو المدن مدحوينة كسو دواو تيفيق عالمي الصومالي ساد وما حسنتهي وادي مركا حيث waxaan noga war bixisa bil xaaladda guud ee maamul goboleedka Soomaalida Khaatimo بسم الله الرحمن الرحيم maamul goboleedka Khaatimo hadii aan ka warbixiyo sanad buu horta jira wax badan ayaa qabsoomay waa maamul muuqda taageeradana wuxuu ka helay waa shacabka Soomaaliyeed ayuu ka helay taageerada waayo sida uu shaqeynayo iyo mabaadi'da uu ku shaqeynayo ayaa waxay tahay mid Soomaalinimo ah oo kaliya aan wax kale lahayn marka Khaatimo waa shaqeynaysaa qaybaheedii kala duwan oo maamulku waa shaqeynayaa kuwii deegaamadu waa shaqeynayaan Khaatimo waa shaqeynaysaa Soomaalina waa shaqeynaysaa waa tahay mudane madaxweyne inta aynan u gudbin mabaadi'da Khaatimo loo aasaasay bal in muddo waxaad ku sugnayd magaalada Muqdisho sidoo kale waxaad sheegtay inaad kulamo la qaadatay madaxda sare ee dawladda bal laga warbixi ilaa hadda maxaa kaaga qabsoomay intaad ku sugnayd magaalada Muqdisho madaxda dawladda federaalka ah oo rasmiga ah kulamo badan baan la qaatay waan wada arkay wixii aanu ku wada hadalay iyo wixii aan ula tagay oo aanu xaq u leenahay ileen waxaanu nahay maamul goboleed dawladda ka tirsan federaalka ah waa isku afgaranay meel fiicanna waa noo marayaan waana noo dhamaan doonaan hadii alla idmo waa tahay mudane madaxweyne inta aan ka war hayno maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Khaatimo markii la aasaasay ilaa iyo xilligan waxa la sheegay inay kala dhiman yihiin hay'adihii kala duwanaa ee dawladda Khaatimo gaar ahaan baarlamaankii oo kale bal laga warbixi arrintaas ilaa hadda halkee maraysa intaas sheegtay run weeye afar gole ayay ka kooban tahay golayaasha maamulka Khaatimo waxa weeye golaha madaxtooyada golaha fulinta golaha sare ee dhaqanka iyo golaha xeer dejinta ama loo yaqaan baarlamaanka wali lama dhisin waxay ahayd 6 bilood in lagu dhiso wax badan baa habsaamay Soomaaliya baa ogtiin hadda 6 bilood ugu dambeeyay doorasho baa lagu jiray ee wax kale oo la qabtay ma jirto saameynaha iyada ah ayaa dhacay laakiin bishan 15keeda shirka caamka oo Congress-ka weyn oo dibad iyo guud la isaga imanayo maamulkuna ku dhamaanayo hadii alla idmo waa diyaar in lagu dhiso iyadoo la sii diyaar gareeyay axdigii ay ku dhaqmi lahayd maamulka Khaatimo iyo golihii xeer dejinta labadaba waxa laga dhawaaqayaa shirka furmaya February 15keeda oo talax ka furmaya hadii alla idmo waa tahay marka shirkaasi muxuu kaga duwanaan karaa shirkii hore ee ka dhacay magaalada Taleex ee lagu aasaasay maamulka wuxuu kaga duwanaan karaa wax badan sanad baa laga soo wareegay waxbaa khaldamay waxbaan fulin wax badan baa qabsoomay xisaabtan baa la gelayaa war maxay naga xumaaday maxaan la qaban maxaa inoo dhiman maxaa inoo eg maxaa saxmay xisaabtankaas la gelayaa golayaashu way soo dhamaanayaan waxgaradka iyo dadka dibadaha jooga diasporada waa la casuumay waa la isugu imanayaa wuxuu kaga duwan yahay kan cid maqnaanaysa ma jirto waa tahay marka maxaad is leedahay baa maamulka Khaatimo oo qabsoomay tan iyo muddada uu jiray wallahi adeer wax badan baa qabsoomay oo lama tirin karo hadeerto waxa qabsoomay ma garatay waa tahay wax badan oo aan qabsoomin way jiraan oo maamul iyagleela oo dhashay wax badan baa ka khaldami kara waa tahay wax badan oo qabsoomayna waa jiraan oo waa kaamaan waxa ku garan kartaa waxa weeye Soomaaliya meel kasto ay joogto ilaa iyo Lawicado ilaa Raas Kaambooni way yaqaaneen maamulka Khaatimo iyo ujeedadii loo aasaasay Soomaali baan la weydiinayaa su'aasha ka jawaabi karta waa tahay madaxweyne intaan ka war hayno dhawaan waxa ka degtay magaalada Taleex ee taariikhiga diyaarad waday wafdi reer Khaatimo ah bal ka warbixi falaydka bilowday ee magaalada taariikhiga Taleex qaabka uu idinku suurta galay in dib ay diyaaradihii uga bilaabaan falaydadoodii deegaanada Khaatimo waa su'aal wanaagsan weeye si fiican baan kaaga warbixinayaa annagu haddaanu Khaatimo nahay dekad ma lihin maamulka markii la aasaasayna
waxa lagu dadaalay in la helo garoon diyaaradeed waa la dhisay waa la dhameeyey saad u sheegtayna waa tan ay ka degeen hadda diyaaradu si fiican kii buu hodlena waa la wadaa isaguna waxaan filayaa inuu dhammaanayo waqti dhow ayuu dhammaanayaa waxaana ugu baaqayaa weliba intaanan arrimaha kale u gelin hay-adaha dawliga ah kuwa aan dawliga ahayn wasaaradaha federaalka ah oo wada shaqayntu ay naga dhaxayso in ay ka soo degaan airstripka aanu u samaynay garoonka caalamiga oo Taleex ku yaala iyo kan buu hodlo muddo yar ku diyaar garoobaya ayaanu ku casuumaynaa inay yimaadaan oo soo eegaan Khaatumo ilaa waa dawlad ka tirsan waa maamul ka tirsan federaalka halka inay yimaadaan oo ay soo eegaan baan urjeenaynaa wixii annaga looga baahan yahay oo diyaar garoowa iyo nabadgelyada ugu horeysana waa sugan yihiin waatay mudane madaxweyne waxaad ka dhawaajisay in hay'aduhu ay iman karaan deegaanada Khaatumo inta aan ka war hayno hay'aduhu kama hawlgeli jirin deegaanada maamulka Khaatumo oo runtii in badan maamulo kamid ah maamulada Soomaaliya ka jira ay isku haystaan sida Somaliland iyo Puntland oo kale marka maxad is leedahay ilaa hadda way ku dhiirigelin karaan hay'aduhu inay deegaanada ka hawlgalaan yaasi damaanad qaadaya amaankooda waa si wanaagsan amaankooda horta annaga damaanad qaadayna ammaanka cidda noo timaada oo martida noo ah ama dawladda ka socoto ama hay'ada ha noqdeen ama jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa ha noqoto ciddii annaga marti noo ah oo noo timaada ammaankeeda annaga qabna ma jiraan ilaa hadda wax hay'adaha oo ka hawlgala deegaanada way jiraan waxa ka hawlgashay deegaamada mid joogtay more than 20 sanadood ama 15 sanadood ka badan waxa jirta hay'ad joogtay oo la yiraahdo MBA habeenkama ay tagin wax loo geystaana ma jiraan oo dhibaato ah dadkana waa u shaqaysaa kuwa kale oo ku biiray hadda baa jira oo Mercy Corps iyo qolo kale oo hadda magaceeda aan garanayn iyaguna waxay u shaqeeyaan si caadi ah oo hay'aduhu ay uga shaqayn karaan Soomaaliya oo dhan inta nabadda ah ayay uga shaqeeyaan marka kuwa kale intaad ku casuumaysan waa inta Khaatumo ay ka arrimiso ano dalka ilaa waa la kala leeyahay maamulka iyaga intuu ka arrimiyo oo dhan ayaan ku casuumaynaa runtii ammaankooduna waa sugan yahay waatay mudane madaxweyne sida nagu maqaalaa dhawaan waxa ka furmi doona dalka Britain wada hadalla ay yeelan doonaan dawladda Soomaaliya iyo ama ay isugu imanayaan qaybo kala duwan oo Soomaalida ka kala socda Somaliland ay ka soo qayb geli doonto sida la sheegay bal maxaad is leedahay baa shirkaas ka soo bixi kara ka maamul ahaanse sidee u aragtaa adar waxa weeye horta anigu waxaan u arkaa deegaf haddii la yidhaahdo Somaliland iyo Soomaaliya waxa weeye dawlad jirta 60kii dhalatay Somaliland ka mid bay ahayd in ma garanaysaa Somaliland iyo la yiraahdo Soomaaliya anigu waxaan u arkaa waa gaf weeye marka waxa weeye iyadoo taasu ay gaf tahay sida in loo ogaado xukuumad iyo shacabba ayaan doonayaa oo sida loo fahmo laakiin maxaa ku jaban baad isleedahay haddii Somaliland ay shirka ka soo qayb gasho oo loo wada hadlo dawladda dhexe Soomaaliya iyo Somaliland waa qalad weeye waa tahay waana qalad markaan su'aasha inta kaga gudubno dhawaan waxaad dagaal ay ka dhaceen deegaano ka tirsan gobolka Sool gaar ahaan degmada Xudun oo kale bal seel u aragta dagaalada halka ka dhacay yaadse eedeeda eedeedu iskuma jirto eedeeda waxa le maamulka Hargeysa waayo inta iyaga soo duulay iyaga Xudun qabsaday iyaga soo duulay markii dambeena dagaal walba iyaga curinay oo bilaabay waata waxaana deeruna oo iskaba jirta marka ay soo duulayaan mayd bay soo sidaan markay sii socdaan mayd bay sii sidaan waata Xudun ma haystaan intii kale ay ku soo gardaroodeen waa laga saaray dabadeedna meel buura ah oo Xudun xagga ka xigta ayay hadda soo gurteen ay joogaan halkaana waa ka saarayna waana ugu tageynaa waana ku dabagaleynaa waata madaxweyne marka laga yimaado in dagaal noocaas ay dhacaan oo ay iskaga hor yimaadaan Somaliland iyo Khaatumo ma jiri karaan wasiilooyin kale oo deegaanada dagaalada lagaga baajin karo dadka dagaalamayana ay ku wada hadli karaan way jiri karaan laakiin nin qufacaya baa leeyahay shifo intuu caana ka baday ku qufacay soo ninku cudur ka weyn buu qabaa iska daayay buu laga quusay in badan baanu nabad ka raadinay
qoladan hadda maamulka Hargeysa in badan baanu gogol u dhignay nabad baanu ka raadinay waraynu nabad ku wada noolaano war reer qabsan karaa ma jiro suurtageli mayso hal in la dhameeyo waa dhici kartaa laakiin reer qabsan karaa ma jiro adduunka war nabadda wanaagsan war bala ma taqaaniina annaga naqaano oo boqolaal sano halgamaynay war bala looma baahna war wada noolaasha loo baahan yahay war waxa loo baahan yahay daris wanaag war waxa loo baahan yahay Soomaalinimo war waxa loo baahan yahay ixtiraam mutabaadila laga waa tahay laakiin marka dagaal anagu waa joojinaynaa dagaal haddii laga helayo iyaga nabad iyo dalku ay ka baxaan waa tahay laakiin madaxweyne in badan arinta waad ku soo celcelisaan iyaguna si lamid ah arinta Soomaaliland ku andacoota in dagaalada idinku aad wadaan in badan ay ku baaqayaan nabadgeliyo marka laga yimaado in labadina dhinac baaqyada noocaas jeedisaan arintu waxay u muuqataa mid ku taag in qolo walba ay isleedahay markaas difaac ama ay aragtideeda ay difaacayso idinka ka maamul ahaan ma isleedahay waxaad la iman kartaan wax unique ah oo ka duwan qaabka hadda labada dhinac ay u dhaqmayaan oo deegaanada ku xasileynaysan si dadkii maartay uga baaqsadaan in mar walba dagaal ay ku soo noqnoqdaan adeer waa su'aal wanaagsan weeye iyaga ayaan laga helin hadalku waxa weeye intii hore aan ku sheegay xaqiiqdiisu annagu di waxaan u diyaarnahay nabad ku noolaansho daris wanaag walaalnimo iyo nabad baan u baahannahay Soomaaliya oo dhan baan u baahan iyaga laga waa dalka iyaga bay haystaan kayn haysan bay ku soo duulayaan maalinba meel bay ku soo ciidan ku soo kicinayaan wixii ka dhacay Kalshaale waa la socotaa wixii ka dhacay Meegagle waa la socotaa waxa ka dhacay Xudun waa la socotaa la sacaanood wali waa haystaan war nooga baxa dalka iyaga ma wada lihine annaga leh ayaan inta ku haynaa war nabad war dalka iyaga nooga baxa war nabad war walaalnimo laga waa iyagay ku xidhan tahay markaa iyagay ku xidhan tahay wixii laga waayay hadday yeelayaan annaga nabad waa laga helaya waa tahay laakiin Soomaaliland waxay ku andacootaa deegaanada ay haysato in dadka jooga ay ayidsan yihiin ama ay taageersan yihiin dhanka kalena khaatimo waxay ku eedaysaa in lagu dhisay xamaasad oo dad isu yimi ay xamaasad ku aasaaseen sidoo kalena ay jireen dad ahdaaf iyo ujeedooyin kale ka lahaa aasaasitaanka ama dhismaha khaatimo aragtiyaha noocaas maxaad ka oranaysaa adeer aragtiyahaas oo dhan waxa weeye waxaan waxba ka jirin isaga soo duulay la sacaanood buu qabsaday war nooga baxaan u niri waa diiday buu hoodle intaasoo dagaal buu ku soo qaaday oo aad garanaysid sidoo Kalshaale ka mid tahay ummadii oo dhan buu xasuuqay taayir baa la mariyay caruurtii iyo dumarkii Soomaaliland garan haddii ayan ka gaashaaman oo iyagoo nabad qaba baaqayagana ka ajiibaya haddii aan iskaga bixin dalka waa tahay marka laga yimaado dagaaladaas Soomaaliland idin dhaxeeya iyo xukuumadda dhex taala dhanka kale Puntland ayaa iyana meesha soo galayso oo in badan oo maartay deegaanada kamid ah iyana ku andacoonaysa inay maamusho ama dadka iyada ay reer Puntland ay yihiin sidoo kalena dhawaan waxa laga aasaasay deegaanada aad sheegteen khaatimo ay u arrimisay buuhooda ay kamid tahay waxa xafiisay ka furtay axsaabta kala duwan ee Puntland bal ka waran arinta iyada Puntland lafteed waxay ku andacoonaysaa in deegaanada iyada ay maamusho kama maamul ahaan sidee u aragtaan arinta iyada waayahay arinta iyada si fiican ma kaaga jawaabaya marka ugu horeyso horta Puntland iyo khaatimo dadka ku nool waxay isu yihiin waa taqaana waa dad isir wadaaga waa dad walaala ah waa dad isku wanaagsan haddii intaa marka laga tagana waxa weeye waxba isugu kaayay jiray oo waxba maamul baa naga dhaxeeyay oo ittifaaqiyad baanu lahayn oo isku maamul baanu lahayn waan Arabiya loodan baa isugu dhagoeyna way isqaniinaan baa Soomaalida ku maamaada waa lagu ninkii wax gansadaa wixii lagu heshiiyay haddii uu wax qalada ka tirsado oo laga shaafiyo waayo dabcan waa ka baxaya oo heshiiskii marka waxa weeye labada shacabna waa gaar labada maamulna waa gaar shacabka reer Puntland iyo shacabka reer Khaatimo waxa ka dhaxeeya walaalnimo waxistar tullimo isir isku dad ah waxaanu ka tirsanaynaa halka waxa weeye wixii waajib oo shacabka ku beegnaa oo Khaatimo kaga beegnaa inay ka soo baxeen waxaanu wax ka tirsanaynaa markaa ama aanu haddaba u sheegaynaa waa maamulka waa khaldan yahay laba maamul baanu nahay waa faragelin
واحد قدب وقرد رعد إنه يمادو الدجان خاتمه وهؤلاء يو أي وتان أي كفر شدان وحنو لنا هي ورولا ليالو نجدعي ورمها بونا وروا غلط ورنو من ما نجرو وين حول كمفلينه قال كعينه حول كمفلينه أنا جنودنا لو معمول بينهم هاي إنه وذا نولان شو ونكسنية ولا تنمو إنه كودا نولان واضح إن دوان مدحونا بونتلان وحاو باق قدر سوماليلاند وكشاقي إن وضع هذا لا يوصعدان إيجاي سوماليلاند sidoo kale waxa uu sheegay in Somaliland ay wax weyn ka dhaxeeyaan wax weyn ka dhaxayn doonaan maamul ahaan dabcan labada maamul badris baa leeyihiin sidee u aragtaan baaqa madaxweynaha Puntland qariib ma aha wax la yaabo ma aha horey bay u jirto aan u ogeyn inay yihiin laba maamul oo gacan saar leh sababtu waxa weeye deewana u soo wada duuleenba oo ku qabsadeen oo wali ku haystaan meeshii la yiraahdo karad oo ah customkii ugu weynaa oo khaatuma ay lahayd lacagta maalintii laga qabto habeenkii garow waa lagu xareeyaa warnooga kacana diiday waxaana haysta Puntland waxaana qabtay meesha Somaliland iyo Puntland oo wada socda marka waxa weeye haddayna dhaafeen oo ay naarki waayeen oo xagga u gudbeen waa wixii caadiga ahayd oo aanu arki jirnay weeye waa gardaradii caadiga ahayd oo labada maamulba ay nagu hayeen oo practicalka ahayd oo aanu arki jirnay weeye umaduna og tahay laakiin baaqyada labada dhinac ay jeedinayaan ee ah inay nabad ku baaqayaan idinka ka maamulahan yaani meesha ku jiraad ka faa'iideysataan wada maxaa ka dhaxeeyo ay nabad isku baaqaan isku deegaanba maaha annaga u dhaxayna qolana waxay jirtaa xagga qolana xaggay jirtaa maxaa ka dhaxeeyo nabad ku wada baaqayaan waa tahay marka taa laga yimaado dhawaan waxa dawladda Soomaaliya ay aqoonsi buuxda ka heshay dhigeeda dawladda Mareykanka bal sidee u aragtaan idinka ilaa hadda talaabooyinka ay dawladda dhexe Soomaaliya ku talaabsatay iyadoo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya uu dhawaan booqanayo ama hadda booqasho ku jooga dalka Britain una kulamo la qaatay madaxda sare ee dalalka reer galbeedka sidee u aragtaan idinku ilaa hadda tadawurka ay ku talaabsatay dawladda dhexe Soomaaliya waxaan u aragnaa talaabo wanaagsan oo hore loo qaaday waa soo dhaweynaynaa waa jecel lahay waa sidii aanu filaynay oo aanu ma garanaysaa ka filaynay adduunka dawladda rasmiga ah oo aan ahayn dawladihii ku meel gaadhka ahaa mar haddii la doortay road mapkii la fuliyey dimuqraadiyadii dhacday horta adduunku saas u soo dhaweeyey annagoo ah state ka mid ah federaalka Soomaaliya oo ku xidhan dawladda federaalka ah iyo madaxdeeda iyo golayaasheeda waa soo dhaweynaynaa arrintaa waa mahadinaynaa waliba waxaanu jecel lahay xagga nabadgelyada inay nagala qayb qaataan oo Soomaaliya oo dhan ay u baahan tahay nabadgelyada iyada ah inay nagala qayb qaataan ayaanu aad uga rajaynaynaa waana kula shaqaynaynaa waliba waana bogaadinaynaa waa tahay su'aal ka baxsan su'aalahaas haddii aan ku weydiiyo mudane madaxweyne dhawaan dawladda Britain waxay digniin ka soo saartay dadkeeda ku sugan Soomaaliya gaar ahaan iyadoo xustay Somaliland sidee u aragtaan ilaa hadda digniinta dawladda Britain ka soo yeeraysa ee ku aadan in waxa ay ugu yeedhay argagixisada ee deegaanada ku soo badanaya in muwaadiniinteedu ay ka digtoonaadaan ka maamul ahaan idinku soo aragtaan waxaan u aragnaa waxa weeye xaqba iyo Soomaalidu ku maamulada haddii afka laga awdo feeruhu ka dilaaca waxaana la ogaa waliba oo la ogaa madaxda ama shabaab ha noqoto ama shabahadihii kale oo diiniga ah oo soo maray ha noqoto intuba madaxdeedu inay ahaan jireen dad dhalashadoodu ay tahay Hargeysa oo markaantima doonta ah oo wasiirkooda daakhilka Mr Duur uu ku qudbeeyay shabaabka laga soo eriyay koonfur oo annaga noo imanaya inta annaga deegaanka iyaga u dhalatay waa saamaxaynaa waana soo dhaweynaynaa oo markaantima doonta ah oo sajilan haddii maanta adduunkiina ogaaday ingiriisna ogaaday ummaddiina ogaatay waxa weeye arrintaasi waa sidaan u sheegay arrin awalna afka laga awday bay ahayd oo annaga nala saaray xaqiina maanta uu muuqday waayo xaqu ma qarsoomo إن الباطل كان زهوقا مركي حق الله إيوه وحا أدق حق يا باطل حق أدق
markaa sidaa weeyaan waa tahay mudane madaxweyne waxaan ku dhadhownahay gabagabadii barnaamijkeena in badan oo ka mid ah shacabka khaatimo waxay ku andacoodaan in maamulku ka gaabiyey howlihii loo igmaray isla markaana sidii horena aan su-aashii hore aan ku weydiiyay ahayd waxay ku tilmaamaan in maamulka ay ashkhaasi ujeedooyin gaara u samaysteen maxaad ugu baaqi lahayd shacabka reer khaatimo maxaad se aad is leedahay xilligan maamulka khaatimo way u qorshaysan yihiin inuu ka bedelo jawigii hore ee deegaanadaas ay ku sugnaayeen adeer wallaahi ka hor dhici maayo horta sidaan hore kugu sheegayna waxaa jira shir congress ah oo la isugu imanayo dibad iyo gudo golayaasha oo dhan noocu doono ha noqdee wuxuu ka dhacayaa bishan February 15keeda meesha la yiraahdo caasimadda ku meel gaadhka ee Taleex ayuu ka dhacayaa ka hor dhici maayo meeshaas shirka la isugu imanaya waa shirkii falanqada iyo xisaabtanka iyo talada wanaagsan oo la qaadanayo markaa weeye markaa ka hor dhici maayo mudane madaxweyne in muddo abaad magaalada Muqdisho ku sugnayd bal maxaad is leedahay beelaha hadda kaaga qabsamay waxyaarihi aad u timi goorma ayaysa ku eegtahay baad is leedahay booqashada magaalada Muqdisho aad dib ugu laaban doontaa deegaanada Khaatimo su'aal wanaagsan weeye adeer waxaan waliba kaga faa'iideysanayaa warar badan oo la isla dhex marayo oo joogitaankayga khuseeya ayaa jira meesha waxaanu joogaa hawl Khaatimo waa hawl shaqo waataan hore u sheegay xukuumadda madaxdeeda ugu sarsaraysa way saragnay wasiirada qaar baanu isaragnay hawlihii meel fiican bay noo marayaan haddii alla idmana hawlaha oo lagama maarmaana oo dan u ah Khaatimo weeye waxaanu joogaa dacaayadaha jaban oo magaalada laga shubayana waxba kama jiraan markay dhamaadaanna waa tegayaa haddii ilaahay idmo waxaana khasaba oo aniga igu khasaba shirka 10 maalmood ay ka hadhay inaan joogo Taleex weeye haddii ilaahay idmo waa tahay baaqaad u diraysa markaa shacabka Khaatimo baaqaan u dirayaa waxa weeye Soomaalida waxay ku maamaadaa hawlka madaalay wali waa hogadii shacab yahow maamul baad leedihiin waa tashateen ayhiina inaad idinku maamushaan oo ka tashataan ayaad leedihiin oo xaq u leedihiin waad yeesheen sucuubaad fara badan waa imanayaan cadow fara badan baad leedihiin waxa lagaga gudbayaa ujeedadii aynu lahayn oo Soomaali doonka ahayd oo ay ka tashigeen ahayd waxa lagaga gudbayaa waxa weeye midnimo Khaatimo waxaan idinku baaqayaa inaad midowdaan waxaan idinku baaqayaa hawshaad idinku haysateen oo ahayd isxukunka iyo ismaamulka iyo ay ka tashiga reer Khaatimo inaan laga daalin waxaan kaloo idinku baaqayaa Soomaali hawlo badan baad u haysaan aad baynu isu fahmaynaa haddii aynaan meesha ilaahay ina dishay aynaan degsanayn oo aynu ka maqannahay Soomaaliyiin inay is haysateen baa laga yaabaa maanta ama xaqiiqduba ay tahay waxaan idinku baaqayaa midnimo Soomaaliyeed si aad u doonayseen inaad u doontaan midnimadiinana inay muqaddas noqoto tan Soomaaliyeedna muqaddas noqoto sidaasaad ku adkaanaysaan idinkuna wax isku taraysaan maamulkuna u muuqanaya Soomaalina aad wax ku taraysaan waa tahay mudane madaxweyne aad baad mahadsantahay dawladda inta waxaan ku soo abjaraynaa guud ahaan waraysiga aan la yeelanay madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Khaatimo State Cabdinuur Cirmi Qaaje Binde waraysigan mid la mid ah inta aan ku kulmi doonana waan igu aadan Jaamac Axmed oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad mahadsantahay